السلام عليكم أصحابتي دقاليقة السود وهذا ما شاء الله تبارك الله ما أنتم حيدين وذا ما شاء الله تيمها إلمها قبلها يرير قابك لوجو هجاتيو أو قبلها يجوجو هجاتي أصحابتي دقاليقة ما شاء الله دكانك أنكسو أديكتين وإن الشيرية أصحابتي دقاليقة ما شاء الله تبارك الله وكنا دكانك قبلها يالان ما شاء الله وحول بو بهاتو قيمة شابيسنا له ما شاء الله وقيمها أوسكو أريين ميك اب هدي تهاي شامبوين تياله هدي تهاي بينك قبلها تيمها لو وحده هدي تهاي قبلها يركو حلو لبس هدي تهاي وح تين وح والبو أكيه ليس وح والبو ما شاء الله تبارك الله أصحابتي دقالي كسو دواذا وولاشين رند عدي اوفشال او إذن له سو دواذا وهورين هدان نقو عصب تهاي channel سبسكرايب نوصار ما شاء الله تبارك الله هدان نلتشوكتي كومنتيغا iyo like-ta naga dhis walaalahayga qaaliga ah ma sha Allah tabarakallah waa biinanka gabdhaha yar yar oo inaba caadi ahayn oo u dhaqayso xataa oo mar labaad ugu celinayso walaalahayga qaaliga ilmoolay ayaa la iska yahay waxyaabaha ma sha Allah lacagta yar ama tayada leh lacag yar lama fiiriyo waa kaasa ma sha Allah waxyaalaha aan u baahnaa yar yar ayaan ka soo iibsaday shanladii lagu shanleynaayo ee broska ma sha Allah oo qaybta laba qayb ah qaybna waxay leedahay qaybta concealer وعند كوشة ما شاء الله تبارك الله وحويان ميك اب عندنا بعادي اهين او تيالي قروح بدن ميدب كاغانا aan laga fahmeynin aan ka soo gatay walaalay qaaliga waxa idin la sheerayo waa eyelash ma sha Allah inaba caadi ahayn yar yar waaweenkii aad jeceshahay oo ka soo helaysa oo qiimahan uu ku eriyeynin waa maxaa waa ka sii daran tahay waa shaambada ma sha Allah shaambo saliid leh silsilaha shaambada قليلك madaxa uma fiicna waa shaambadii tan greenka ah tan kalena waa condition tan waa shaambo sorry waxa weeyaan treatment ama nafaqo hadbaki u taqaano oo inaba aan caadi ahayn walaalay qaaliga dandruff waxa la yiraahdo ama agoolka waxa uu naqaan af Soomaali xataa way ka baabiinaysaa waa gabadheedii ma ugu soo dhaqay rumays cadeey ma sha Allah tabarakallah aan ugu soo dhaqay iyo qaabka ugu sameeyay walaalahayga qaaliga ah ku soo dhawaada asxaabteeda timaha waa in laga dadaalo asxaabteeda qaaliga hadii timaha shaambo aan saliid lahayn ama oil lahayn oo dry ah hadii lagu dhaqo walaalahayga qaaliga ah oo wax kale aan lagu sameeynin la iska duuduubo tinta way dhimanaysaa way jajabaysaa tin qurux badan hadii Ilaahay ku siiyo xitaa wax u baahan tahay in laga dadaalo wax walba wax laga dadaalo u baahan tahay tinta waa beerta camal hadaan la waraabinin حويان بيرت سو متجبس مهلابيس exactly تمهنا واساس وكله ولا ليه قاليقة ما شاء الله تبارك الله وتهدي قودي دي ريدات انتهدي إذن الله شيري ما شاء الله نفقة دي أيان شامبا دي أيان ودقي نفقة دي أيان مريه هل الساعة أيان باعكو حري دن كدب وانكما يري كونديشنك وشامبا دي وغطو أيان هدنا أن وحيركم مساجي وانكسو ميري تنتشن لذا حتى وحانكو ده مقبسانيس إنا بعادي maahan tintan waxay yeelanaysaa dhumuc ama waxay yeelanaysaa culays ay noqonaysaa tin waaweyn ay noqonaysaa oo tayo leh mana jajabayso mana go'ayso ma sha Allah shaambadaas in badan ayaan ku dhaqanayay walaalahayga qaaliga ah tiro male intaan ku dhaqanayay ma sha Allah timaha inaba waxaan ku raahday kama maarmo haday naga dhamaato wallahi ma dhaqan madaxa ilaa ayada aan sugno waa shaambo condition is wadato hadaad nafqahaysin xataa waa uga maarmi kartaa aniga nafqadaas waxaan ugu soo daray waan ka helay dandruff-kan way ka dilaysaa ilmaha haduu dandruff qabo dhaladay sifeynaysaa ma sha Allah tabarakallah waa hot aan dhahay sorry waxa weey markii la mariyo kulayl yar ayay leedahay ma sha Allah tabarakallah asxaabteeda qaaliga wixii aan arko wanaagsan waa inaan idin la sheero walaalahayga qaaliga wanaagiina ayaan jeclahay aad baan idin jeclahay familkayga ayaa ka mid tihiin qalbiga ayaa iiga taaliin ma sha Allah tabarakallah intaas ayaa walaal lagu yahay Soomaa hawada ayaa walaal lagu yahay walaalahayga qaaliga ah hadii waa kaasa walaashin rinda cadeey official soo dhaweeya subscribe ku caawiya ma sha Allah commentiga oo dhiirigelinta ana de soo qoro dhag waaw ma sha Allah sidaas ayaan u dabayaa gadaal waxaan ka galiyay meesha u dambeeyay waxaan ka galiyay biinki oo jijiid maay ayaan uga xiray dhab uga siiyay intana waan shanleynaya biin kale yar yar ayaan qaybta horena uga dhijinayaa si ayna uga furfuranin tinta gabadha yar ma sha Allah tabarakallah walaalahayga qaaliga ah soo dhawaada maxaan ku dhaas martiyeynina mininkiini waaye walaashin randa oo idin le mar waliba soo dhawaada waji furan qalbi furan gacmo furan ya
kusoo dhawaada walaalahayga qaaliga ah in alaala iyo qof alaali qofkii daawada please subscribe hanaga iloobin maxaan ku yiraahdaa like-tana ku dar alamka furo gambaleelka furo walaalahayga qaaliga ah si video kasta uu kugu soo dhaco noola daawato maasha Allah tabarakallah halis caawiyo youtuberada ama walaalaha Soomaaliyeed dhamaan halis caawiyo qof walba wixii Ilaahay baray iyo maxaan ku dhahay qof kale uu soo gudbinaya laga yaabo in dad aad u tiro badan ka faa'iideystaan walaalahayga qaaliga nolol maalmeedka iyo wixii maanta aan noo hirgalay iyo waxaan karsanay iyo waxaan samaysanay iyo wixii nagu soo biiray inaa idin la soo cararo soo maaha maasha Allah tabarakallah waa iga mudantiin iyo wax ka weynba maasha Allah tabarakallah wata hadii gabdhaha yararka timaha loo hagaajiyo ha loo kala kiciyo maasha Allah timaha gabdhaha yaryar qaar waxaad arkaysaa wallahi si isaga daban yihiin dhalada intay agool ka buuxsamo saliid ku shubeynin yaa silca arkaysaa gabdhaha yaryar laga dadaalo walaalahayga qaaliga ah waa ubixi waa quruxdeeni maasha Allah tabarakallah hadhowna timaheeda waxay noqonayaan timo tayo leh oo u baxa iyadoo gabar yar aba dhabarka u taga waa maasha Allah wax walbana waa hagaajin wax alaali iyo wixii la hagaajiyo way hagaagaan walaalahayga qaaliga ah maasha Allah tabarakallah hadda waa kaasa qayb ayaan u kala shaaxeeyay qayb kasta waan shanlaynayaa marka u horeysa because iyadoo is dhex gashaa laga yaabaa shanlada ayaan marinayaa dan biinka ayaan soo gelinayaa markaas biinka aan geliyo kadibna waan dabayaa maasha Allah marka waa kaasa walaalahayga qaaliga u jeedaan hadee yaa fadhiga laga kaco maasha Allah walaashin ranta dhiirgelintana maxaan ku dhahay kama marna oo idin soo gelinayaa walaalahayga qaaliga ah makeup-ka kama marna cuntada kama marna cabitaanada kama marna yaa wax kasta waa la idin la soo cararayaa oo iga mudantiin walaalahayga qaaliga ah maasha Allah tabarakallah idinkana fadhiga ka kaca gabdhiina timaha u hagaajiya saaluun ha tagina saalumada timaha waxa weeyaan way idinka haleynayaan waligeed timaha gabdhayga saaluun ma geeyno wallahi alcadiim sababtoo ah aniga ku baashaalay ana u baahan Soomaa aad ayaan u jeclahay walaalahayga qaaliga quruxda maasha Allah shaqadana ima dhibto maasha Allah tabarakallah ay isdhahay idinkana idhaha ina shaqeeyaan jeclahay 90ga ina shaqeeyo ayaan jeclahay mar cunto mar gabdhaha mar guriga marka insha Allah youtube-kana waan ku cusbahay walaalahayga qaaliga ah halay soo dhaweeyo maasha Allah waxyaabo badan ayaan soo gelin doonaa channel-kayga insha Allah iyo channel-kayga kaliya ma ahane waa channel-keena iyo channel-kaygaba insha Allah maasha Allah tabarakallah asxaabteyda qaaliga ah maasha Allah tabarakallah videogan video ku xiga video aan inaba caadi ahayn ayuu noqonayaa maasha Allah casho fudud oo khatar ah oo pizza ayaa laga soo tuurayaa asxaabteyda qaaliga ah mar dhow ay idinku soo socotaa walaalahayga qaaliga ah hadii waka videoyaasha markay idin soo dhacaan daawada oo like-ta siiya oo maasha Allah tabarakallah yaa kala kiciyade walaashin ranta cadee wakaasa walaalahayga qaaliga ah sidaas ayaan isku ognahay maasha Allah tabarakallah waxa weeyaan maxaan ku iraahdaa dhiirigelinta maasha Allah kama marna waxa loo baahan yahay in la is dhiirigeliyo hooyo fadhiga ka kac jiifka ka kac hadaa hurdo hadaa fadhiga ka kac kuma taray shaqadaas exercise ayay ku tahay waxa waaye jirkaaga ayaa ku kala babaxayo gabadhiyo yar waxa arkaysaabo ayadiyo lawyaha ka fadhiisatay oo 30 gaarin ma fiicna marka waxa weeye shaqada waa exercise wax weyn bay ku taraysaa maasha Allah tabarakallah guriga dhexdiisa hadaad banaanka shaqo ka haynin guriga dhexdiisa ka shaqee kan samee kan kari kan u hagaaji kan yeel kan saa u leedahayba adiga waxa arkaysaa tired abo qubayso marka u dambayso salaadaada rabbiga tuko ilaahay u cibaadeyso hurdo waxa seexanaysa inaba caadi ahayn laakiin maanta dhahdaa kuraasta saarnaat ama fadhiga ku fadhido ama aad jiifto oo telefoon aan sas u hayno wallahi waxa waaye adoo yaraa waxaan ku dhahay aad dilaahay ku roon yahay duqoobaysa oo lugaha ka fariisanaysa iyo lugaha walaalahayga qaaliga ah maasha Allah gabdhiina qurxiyo ilmihiina qurxiyo ku baashaala ku mashquula cuntadooda mar ayaga korkooda mar meesha seexanayaan yaa maasha Allah daayiga lagu mashquulin maxaa kale la hayaabo marka ayaga wax lagu mashquulana ayagaaba ugu wanaagsan Soomaha koritaankooda ay qayb weyn ka qaadanaysaa maasha Allah tabarakallah cunug niyadiisu dhisanta ayuu noqonayaa si fiican ayuu wax u baranayaa maasha Allah ilmahana maluuc insha Allah waa soo wadaa oo ilmaha ka hadlaaya walaalahayga qaaliga ah ilmahaaga inaad saaxiib la noqoto hadda saaxiib la noqoto ilmahaaga gabar iyo wiil wuxuu yahay wax walba oo sir ama wax walba asaga la soo gudboonaad ama wax walba ku dhaco
وكو شيغايا عنugaaga kaama qarinaayo laakiin cunugaaga hadaa wariga tagriyaa waxyahooto kanka ah qurunka ah oo aku dhahdo ka sasiisa mar walba hooyada way ku dili ku jirto marka waxba kulama sheer gareynaa waxba kulama sheegay saaxiib la noqon dadku waxay dhahaan ilmahaaga inaad dhashay lagu malay sababtoo ah waxa weey waa la sheekaysanay maanta dhan hooyo ilmo la sheekaysanay Soomaalideena aad ay ugu yar tahay marka waxaan arkay runtii ilmahaaga dala sheekaysto wax walba way ku sheegi easy wax walba laba qof saaxiib ah noqonaysiin wax walba ku sheegi wuxuu u baahan yahay waxa ku dhacay wax walba sirtiisa ay haddaad ogaato ma sha Allah wax walba ka hortag ay leedahay Soomaaliya wixii Ilaahay qoray way dhacayaan dadaalaad sameyn laakiin haddii aad ka warqabin oo cabsi darteed wax walba kaaga qariyo musiibooyin culus ku dhici karo oo ogeyn marka la sheer garee ilmahaaga saaxiib la noqo haddii Ilaahay ku roon yahay walaalahayga qaaliga ah fiidiyooga idin ku dheereeyay very sorry ayaan leeyahay ma sha Allah qof Allah qofka igu xiran oo asxaabteyda qaaliga ah dad caadi ma aha waa dad aad u fiican ma sha Allah tabarakallah walaalahayga qaaliga ah fiidiyooga dhameyso fiidiyoo kasta ii soo gal wallahi alcadiim waan dhameystaa aad iyo aad marka hadaan chance aan haynin waxa isku dayaa inaan dhameysto markii aan fursad u helo insha Allah oo shaqada iska dhameeyay ayaan fiirsadaa kolka hore waa furaa fiidiyooga like tan siiya comment aan ka bixiyaa hadaan markaa fiirsan karna deewaaba okay waa fiirsadaa hadaan fiirsan karin markaan chance u helo ayaan fiirsadaa marka ma sha Allah walaalahayga qaaliga ah waa kaasa la isku kala kiciyo hadii hala fiirsado yaa intaas aan la iska baqaylin waxa weeyaan wax weyn ma ahan waana free yaa wax lacag ma aha wax xoog kaaga baxay ma aha wax time ka cunay ma aha wax yar oo time oo weeyaan marka walaalka adna ajira ka helaysa ma sha Allah ka raali ahada asxaabtida qaaliga hada fiidiyooga idinku dheeraaday adayaan uga xumahay laakiin waxaan aad iyo aad u rajeynayaa in aad fiirsan doontaan oo aad ka faa'iidi doontaan dukaankaasna wuxuu ku yaalaa asxaabtida qofkii u baahda ma sha Allah wala soo share gareynaa wuxuu ku yaalaa taanku ku yaalaa in aad u taqaanaan dukaamo yaryar oo aad u tiro badan weeyaan oo isku dhigdhow waxyaalahaas laga gado timaha ay ku gadaan waxyaalo badan ay ku gadaan waa dadka waxaan la hadlayaa aan isku wadanka joogno qaasatan Nairobi aan wada joogno ayaan ka hadlayaa International House guriga la dhaho ayuu u dhow yahay asxaabtida qaaliga si kale uma maxaan ku yiraahdaa uma tilmaami karo International House guriga la dhaho ayuu u dhow yahay waa waxyaabo badan ayaa yaala qiimahana kuma eriyaayo ma sha Allah tabarakallah asxaabtida qaaliga ah wataasa babydi maxaan ku yiraahdaa timaha iyo aniga iyadiiba isla rafanayn ilmaha waxa waaye ma jeclo timahooda in la qabto oo la hagaajiyo waa maxaan ku dhahay maba ka helaanbo waa yaraanta marka hada sidaas adna ku sii deyso cunuga tintiisa way baaba'aysaa gabadha timaheeda way ka baaba'ayaan way ka rafaadayaan dad qaar hooyooyin waxa jira ka jaraba markii hadii Ilaahay ku roon yahayba ay dhibaan ama ay ka gaari waayaanba way ka jarayaanba dhibkooda marka ayagana way dhibaysaa hadii wasaq noqoto way dhididayaan wasaqay noqonaysaa tintaada week wasaq ma la joogi kartaa adiga weyn waa may jawaabta marka ayadana ha ku dhibin 4 days markii ay ugu badnaan chance lama hayo ilmo yaraad ku xiriir shaqo ku xiriirto hooyo la iska yahay waxyaabo badan iska jira mashquul ah marka 4 days markii saa u ahaato waliba saliida aad marinayso oo meelaha dhexdhexda saliida aad ugu shubayso cunugta saliida ha ka iloobin saliida waxa weeyaan maalin saliid ah ayaaba jirto wallahi bilaa wadamada Hindiyo kale maalin ay dhahan maalinta tinta waxa weeyaan saliid ayay waraabinayaan madaxa dhan intii la furo oo meel la koro oo saas loo foorsado ayaa saliid la gelinayaa marka saliidaas xoogow inta soo maalinta daqiiqa ay saliida ku dhex jiraysaa tintaas waa laga maroojinaa waa saliid waa laga maroojinaa kadib way ka mayri waxa weey lafta iyo ludda bay ka gashay Soomaha inaba caadi ma saliid uma baahno waa la dhaqayaa waa alaabo khatar lagu dhaqayaa condition nafaqo ma sha Allah tintii waa la fooneynayaa waa kaale arag 1 week kadib sidii yeelayaan iyo maaragtay inta chance u helaan marka aragtay timahooda Hindi weeyaan inta badan waxay u noqotay waxa way ka dadaalaan waka walaalahayga qaaliga gabdhahayga tan ayay ahayd tan la sheergareeyay taasna oo soo hagaajiyay way isku xigaan ma sha Allah tabarakallah hadii waa kaasa asxaabtida qaaliga ah timaha gabdhaha loo hagaajiyo loo qurxiyo loo kala kiciyo